رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وبرنامج كيني أن أجهد ليني الطاقات الشبابية أودها لنيرده وحلقة اللي بعد وحان أجهد ليا سدح قضب oo aan diirada ku saarayo waxyaabaha awoodihii dhalinyaradu ay lahaayeen qiimaha u yeeri kara xalaqadeennii hore waxaan ku soo tilmaanay dhowr arrimood oo taaqaadka shabaabiga muujin kara dhalinyarada awoodooda banaanka u soo saari kara haddana waxaan ka hadlayaa dhowr arrimood oo iyana awoodii dhalinyaradu markay banaanka u soo baxday kadib inaanay qiimo beelin ama inaanay khasaare keenin sabab u noqon kara arinta koowaad waxa weeye dadka dhalinyarada si gaar ah waxaan la hadlayaa oo fariinteeda ay ku dhacaysaa waa dhalinyarada wax baratay ama hadda waxbarashada ku jirto higher education ka ku jirtaan la hadlayaa dhalinyarada aadka u yar yar oo wali mustawiyaadkooda aqooneed u liito aniga khitaabkayga fariintaydu aad ugu ma dhacayso dhalinyarada wax baratay baan ka hadlayaa waxa aad dhalinyarada awoodooda qiimaha ay leedahay soo muujin kara waxa kamid ah intay mar walba cid kale waxay qortay akhrin lahaayeen oo aqligooda ay ku duubi lahaayeen aqoonta ajaanibta ama qoliyo ama dadyow kale nooga timid oo kaliya dabeetana intii yarada ay meersadeen ay dad kale u sii meerin lahaayeen inay wax qoraan oo ayagu ay aqoonta wax ku soo daraan waxay awoodii dhalinyaranimo ayay qiimo u yeeri kartaa ummadaha qaarkood dhalinyaradoodu waxay una akhriyaan wixii cid kala qortay halka ummadaha qaybo kamid dhalinyaradoodu ay iyagu wax baxsiyaan oo iyagu ay wax qoraan oo iyagu ay aqoonta ay wax ku soo daraan waxa la yiraahdaa ummadaha dhalinyaradoodu ay iyagu aqoonta sameeyaan oo ay wax qoraan cilmiga hoggaan bay ka yihiin aqoonta dunida taalayaga hogaamiya halka ummadaha ay dhalinyaradoodu aanay waxba qorin iyagu ay meersadayaal ama akhristayaal ay yihiin ay iyagu cilmiga wariyayaal ka yihiin kaliya wixii ay cid kale oo sheegtay ka maqleen ama ay cid kale qortay ka akhriyeen bay wariyaan sidii bay ku soo meersadeen bay hadana ayuunbay cid kale ugu sii meeriyaan marka waxaan ula jeedaa waxa weeye ummadaha qaar dhalinyaradoodii baa wax qoraya cilmiga wax ku soo daraya cilmi baaris iyo research sameynaya ummadaasi noloshii dunida bini'aadamka iyo caalamka maanta aanu ku noolnahay ayay hoggaan ka yihiin ummadaha qaarna dhalinyaradoodii wuxuun bay akhristanayaan waa akhristayaal marka iyaga waa la hogaaminaya waa sawqa dunida dadka la kaxaynayo oo la qumanayo hadba jidkii la doono la qaadsiinayo ayun bay ka tirsan yihiin aljazaa min jins al-amal marka adigu wax baaray weysado qoonta wax ku soo dari kari weysay oo nin kale wixii si meersaday waad mudan tahay inay ciidaas ay ku hogaamiso oo aad ciidaas ka daba kacdo xaqiiqadan rabina dhalinyarada la wadaaga waxa weeye mas'alada ah inaanu noqolno akhristayaal oo kali ah wixii ay cid islaameed qortay waayadan reer galbeedkunba waxinoo qorayay dabeetana intii yareedoon akhrinay intaan koobiyeyno dhalinyarada naga sii dambaysanaan inaan u sii meerino waa mashaakilka ugu ballaaran oo dhalinyaradeenna wax baratay ee qaarkood ay shahaadad sare wataan maanta waxyaabaha runtii dhibaatada ku ah ayun bay kamid tahay waxaan arkaynaa dhalinyaradeenna aqoonyahanka ahaa wax bartay oo jaamacadaha ka baxay oo darajaadka cilmiga sare watay oo markaad fiiriso midabkooda yani muuqaalkooda iyo shakligooda cid kale weeg
oo markaad fiiriso aqliyadooda iyo habkay u fikirayaan cid kale u eg la yaab ma lahan laano aqoonta ku jirto dhanba waa meeris cid kale wax dhalinyarada iyaga isku haybta ahaayeen ee ka horeeyay ay qoreen oo akhristeen ama ay meersadeen ama wax iyagu baareen aqoonta dunida ku soo dareen ma jirto marka ninkii ay wixiisa meersadeen ama ay buugiisa akhriyeen ayuunbay u midaba yihiin kiibay maxay u fikirayeen ay u qaab maxay de shaqligooda iyo qaabkoodu u eegyahay تعليمتني marka dhalinyaradu in badan waxay waqti markaan wax baranayna inay taqamus ahayd oo ay ahayd waxan ninkani uu sheegay bal maskaxdaada ku shub markaan anigu aqoonyahan noqonay aan bulshadeeni aqoon ku kordhinaynana deeyana waxay noqotay muxaakaad inaanu intii uu sii meerino ayuun bay noqotay marka hadayna weydiiyaan waxaanu dadka barayno aan dadka u sheegayno dhalinyarada u dhigayno iyo buwaagtan la ordayno dhalinyarada hadayna weydiiyaan maxaan ku rumaysanaa waxaan u sharaxno ma garanayno waayo inagu ismayna weydiin waxaan maxaad ku rumaysan nin baa qoray waanu akhrinay sidii un baan nadariyadii theory sidii un baan u soo qaadnay wixii xitaa experiment iyo cid kala sameeyeen leeyahay experiment kamayna daba tagin sidii un baan u soo qaadnay marka runtii waxbarashadeena waxay noqotay mercy waxbaristeenuna yana waxay waqtiga inay meerin oo kaliya inay tahay ahbaabi fillahi awoodaheena dhalinyaranimo way ku filan yihiin oo wayna gaarsiin karaan inaan wax badan baarno inaan wax badan ka fikirno mawaaridda iyo materialska dunida yaala iyo aayaadka kowniga si aanu aqoon iyo cilmi uga soo saarno dabeetana aanu nolosheena aan ugu horumarino awoodaheena dhalinyaranimo way ku filan yihiin inaanu case study samayno oo meedaanka dunida aan ku noolnahay aanu baaritaan ka samayno nataa'ijtaan ka soo saarnana aanu aqoonta dunida taala aanu ku beerino waxay xoojin kartaa arinta noocaasihi haybteeni caqiido ee islaamnimo waxay xoojin kartaa haybteeni qowmiyadeed ama cirqiga ahayd ee muxuu ahay sheeg Soomaalinimo ayun bay xoojin kartaa waxaan rabaa oo iyana xaqiiqa inaan la wadaago dhalinyarada warkayga dhageysanaysa dadka aan waxba qorin waxba baaritaan cilmiga aan ku sameeynin iyagu mar walba oo meersadayaasha ah haday aqoon gudbinayaan intay meersadeen hadana si meeriya waxa ka luma haybtoodii fikirka ahayd intimaagi fikriga ayaa ka luma عقليا عد كلام مثلا قاب فكر كود عد كلام مثلا ما حد يشاق ضمير كوديو وحو ديده وحو أقبله عد كلام مثلا مركز دبنا هيبتو ده قوميجا أما وطنيجا أما اعتقاديجا أيوم بيوايان وموضوع تهاي لأن يرى وحبرتي أقوياء كاهي إن يدبوا فيريان نفس الدودة إن يدبوا إيجس كسميان مصير كأقوانات أو أي كسعدان si ay aayahooda dambe u amaan galiyaan waxaan yar aynan waxaan ku rumaysanay garanaynin fieldiga doontaba ha noqoto xitaa scientific fieldiski waxaan anagu tijaabinay waxaan ku rumaysanay garanaynin cid kale aanu siday ahayd oo naga soo qaadnay sida xaqiiqada aayaheena iyo mustaqbalkeena ummadnimo ma amaan galin karaan horumarka aanu rabno nama gaarsiin karaan tartanka ummadeedan rabno inaan adduunyada ka tartana nama gaarsiin karaan heerka hogaamineed aan rabno inaan dunida aanu ku yeelano iyo maqaamka ijtimaaciga aan raadinaynana nama gaarsiin karaan waa mas'ala marka u baahan inaanu dib u eegno sida xaqiiqadan dadkeena dhalinyarada hadana wax bartay aqoonyahanka aqliyadeenu way ka sharaf badan tahay wayna ka ballaaran tahay in aan isku qalajino macluumaad yar oo aanu cid kale ka soo meersanay inay sax tahay in kalena inaan hubin inagu marnaba inaan qalinka u qaadin aan ka daba tagno waxaan runnimadooda iyo beennimadooda saxnimadooda iyo khaladnimadooda aynaan garanaynin waxaan madmuunkooda iyo contentiga ku jiraahi ma fiyow yahay mise wuu jiran yahay akhlaaqiyan ma waxan buu nambaraya mise wax fiican buu nambaraya naasa inta iska soo qaadno dana iska qaadnaahi aayaheena mustaqbal ee ummadeed ama shakhsiyadeed ma amaan gelin karto waaqicaan maanta ku noolnaana runtii wuxuu qirayaa inaynaan inagu aqoonta waxba ku soo darinay uun dad wax meersada ama wuxuun loo meeriyo inaanu nahay masalada marka waxaan muxuu ahay sheegan diirada ku saaraya waxa weeye inaanu mar walba akhristayaal aynaan noqonin
inaanu qorayaal noqono inaanu baarayaal noqono inaanu xaqiijiyayaal noqono inaan anagu experiment sameeyno scientific ah inaanu inagu yani nolosha theories ku soo darno inagoo mashaakilka ummadeena iyo duruufteena iyo yani ka jaan qaadayna waxa la yiraahdo resources ka aanu heli karno iyo even maxaa la yiraahdaa xitaa caqabadaha iyo challenges ka maanta dunida naga haysta waxaanu aanu heli karno furas khaarijiya yani ishaag iyo waxaan haysta caqabada khaarijiya markaan isku dardarsano inaanu xaqan inagu daraasaad meydaniya samaysan karno cilmi baaris samayn karno nolosheena inaanu inagu saameyn ku yeelano cilmiga dunida ka jirana qayb inaga naqosayso inagu aanu baaranay xaqiiqadeeda iyo runteeda iyo beennimadeedana inagu aanu baari karno inagu aanu tijaabin karno inaanu aan ku yeelano qodobka labaad dhalinyarada awoodahooda dhalinyaranimo markay banaanka u soo baxday kadib qiimo u yeeli karta waxa kamid ah inaynan aqliyadeena iyo maskaxdeena aynan ku mashquulinin aynan ku luminin mar walba inaan ka doodno oo fadhi ku dirada intaan fariisano aanu ka doodno maanta maxaa dhacay maxaa la yiri maxaa la sheegay ama hebel muxuu yiri hebel muxuu qabtay hebel xagu ka dhacay maanta oo dhan inaan ka doodno ahdaaf iyo dhacdooyin ama ashxaas iyo shakhsiyad hebel iyo heblown inaan hadal hayno qiimaheena dhalinyaranimo way dilaysaa taabadalkeeda waxa sax inaan ku mashquulno inaanu ka doodno afkaar iyo mabaadi iyo culuum iyo cilmi iyo nadariyaad aqooneed inaanu ka niqaashno ka doodno oo waqtigeena ugu badan aanu meesha galino الإمام أبي الحسن الندوي عليه رحمة الله أيها وحرر وحلقوا لي وحي ورنجري دتك وسدح قيبود وحي ورنجري قيب وقوة دتك وخير كبدن وحي ورنجري وقوة مرول بكدولة وهذا الهيا مبادئ إذا هي أفكارته ومدوا ذا سامين تقوله سي أي وحي أفكاره ومدوا ذا خطر وهن ولا حيان وحي أفكاره ومدوا ذا أنفعينا محي يعني أيودر عن ريان ومدوا ذا يوفى إيديان كوا وحيد وخيرة الناس مرة وحي هذا الهيان أفكاري مبادئون قولها لبعض وحيدي وصنف بين الخير والشر وقولها الشر يا خير نحتاجا وحيدي وقولها مرة لبعض أحداث يدعذوينك يجو هذا الهيئو دعذا يا محل أي شيء دعذوينك يكدو ذا يا محل هذا أي شيء واحد معي ما أنت كدو ذي كوا وحيدي يجو الشر يا خير بنحتاجين قولها سدحاد وحيدي وقوم لا خير فيهم وقولها وح خير بلهين وحيدي وقوة مرة البيو كدو ذي شخصيات هبلي هبلون بهذا الهيان بركوا يرتعون الأعراض يعني ويفسدون العلاقات دات شرفتود بيداقيان ومضى علاقاتك كده حريرده كده حينا ويفسادين يعني كواس marka umada wax khayr oo malaha waxaan doonaynaa in aanu maxay aanu maxalida ay sheeg aanu mar walba ka doodno mabaadiida oo inaan dhacdo iyo qof inaan ka doodno magaciisa inaan ku mashquulin masalada kale ee aan ku khatimayo waxa weeye qiimaha awoodeena dhalinyaranimo waxa wax badan ay ku xiran tahay waxyaabaha aan isdiidayn inagu inaan kala raacdaynin iyo mar walba maxaa la yiraahdaa laba arimood oo aan kala hari karin inagu inaan kala raacdayn oo inagu maxay aynaan kala reebin marka laba arimood waa inaan kulminaa oo ah al-asala wal mu'asara maxaa la yiraahdaa wixii hore oo anagu aan lahaan jirnana waa inaan wax ka xafidanaa modern life ka nolosha casriga oo socotana waa inaan wax ka qaadanaa sidoo kale waa inaan laba arimood kulminaayo aqoonta iyo xirfadana waa inaan kulminaa waa inaan mar walba cilmina sidnaa xirfadna waa inaan sidnaa aqoonaan xirfad lahaynna meel nama gaarsiiso xirfad aqoon ka marnana meel nama gaarsiiso arinta saddexaadna waa inaan kulminaa inaanu shaqaysano no shaqo tagno wax qabsano iyo inaanu noqono dad qiyam iyo akhlaaq iyo mabaadi' ay ilaashadaan leh يعني إنك شقتكتو شرط وما أها إنك كقاوناتو أخلاقه يا دين هذا يا قيم كذا شعائر هذا الدينية هذا شقتك يا محترف وحرف الله أو ده وحقبصنا يا ونلاشة محايشة كحفلتما يا أيها هدنا إلى شنكر تقيم كذا مبادئ هذا أخلاقيات كذا هيت هذه الدينات أخلاقيات وحبها النوع عاصينا هدنا إنه نقولنا ده أصل كي وراء كلية كل جناده ونلاشة عصر كعرضة دينا بانو جبينا هذا مدة عصر قدبا ردنا ونأصل كنيو وصوش النيه هراء نقني الدين كل سنة دان لومينا نسيدو كلا وبابينا هدنا قانت يحرفنا كرربنا وبابينا التزام كشخص جاه قيم كأخلاق ده مبادئ كل سنة هي شقيس جايو احتراف كا هدنا كرربنا وفشلنا حلقة أنت أسمع كوجا بين جبينا يا الله سبحانه وتعالى أولى وأعلم والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان يا حبيب رمضان ليتك